الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قانونك عفسك وحويه إلهي سبحانه وتعالى صفة ليه هي عفو كريم ويه وحبو عفية وانا عفس بدنيه أضوميه كوا وحافينا وجعليه ومركل ظلميو أما ديب لو جيستو عفيه والعافين عن الناس فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نروش عادي أهدتكم مركا أي أركان قفك وحافيه راحوا مكون ولادا وحو دريما قلبي جيسو إنو دقين يهي محاد عي وحا كبحي آرسي وحا كبحي نعيب وحا كبحي أرجوسي إيو قفكي إساقا وحو جيستي inuu ku mashquulo ama dabagalo ayaa ka baxday qalbigiisa sidaas darteed ayuu isaga laftigiisu caafimaadaya marka ugu horeysa. ilaahay subxaanahu wa ta'ala cafiska wuu noogu yeeray wax badan allah subxaanahu wa ta'ala wuu najeclaysiiyey bal ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu tilmaamay qofka wax cafiya inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala ajarka xaggiisa isagu ka siinayo. maxaa qofka ugu badan oo loo geysan karaa dhib ah marka aynu fiirino qisadii nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam walaalihiis isaga la dhashay ayaa xasday marka ay xasdeen ayay haddana waxay go'aansadeen inta u shawreen oo u shireen ayay waxay go'aansadeen inay dilaan. markii dambe mid baa soo jeediyey yaanaan diline god ama ceel aynu ku ridno kadibna sidii bay yeeleen aabbahoodna been bay u sheegeen oo waxay dhaheen bahal baa cunay wiilkii dhibaatadaas bay u geysteen kadibna way iibiyeen kadibna addoonnimu galay kadibna dhul kaleeto oo qurbo ah baa isagoo wiil yar ah la geeyey kadibna dhibaatooyin kale ayuu meeshaas kala kulmay qurbahaas oo xabsigii uu ka mid yahay fitnadii haweenka ay ka mid tahay intaasoo dhanna markii uu ka soo baxay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu taqwada iyo sabirka ku soo dhaafsiiyey ayay muddo dheer kadib walaalihiis kulmeen. dhibkaas intaa leeg qofka loo geystay ma kula tahay adiga dhib la mida in laguu geystay? wax kastoo aad qofka walaalkaa ka sheegato waxay ila tahay inaanay jirin. saas darteed markay u yimaadeen walaalihiis oo arrintii ay ku sameeyeen ay xusuusteen oo ay yidhaahdeen ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa nooga kaa hiiliyey tallaahi laqad aaharaka allahu calayna wa in kunna la khaati'iin annagu dembi baan samaynay. wuxuu ku yidhi laa tahriiba calaykum alyawma yakfiru allahu lakum wa huwa arxamu araaximiin. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin dembi dhaafo. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan idinka baryayaa inuu dembi dhaaf inoo sameeyo korkiinana waxba maaha maanta laydin eedayn maayo laydinla xisaabtami maayo. xataa mar qura ma uyan soo xusuusin dhibkii ay u geysteen markii xataa uu ka sheekeynayay ama aabbihiis uu uga sheekeynayay ilaahay galladaha u galay wuxuu ku yidhi aabbo ilaahay waa ii galladay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xabsigii buu iga soo saaray ma dhihin godkii walaalahay igu rideen buu iga soo saaray ma dhihin wuu oran karay. oo markii shaydaanku aniga walaalahay isku kaaya diray ilaahay subxaanahu wa tacaala barwaaqo ayuu nooga dambaysiiyey. ilaahayna mulkigan buu isiiyey. rabbi qad aataytanii min almulki wacallamtanii min ta'wiili alaxaadiidi faadira asamaawaati waalardi anta waliyi fi dunya waalaakhira tawafanii musliman waalxiqnii bisaalixiin. qalbigaaga waxaad bartaa cafiska, waxaad bartaa dulqaadka, waxaad bartaa inaad ka tegi karto wax, inaad wax dhaafi karto, waxaad xusuusataa ajarka faraha badan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u ballan qaaday inuu ku siiyo iyo sida ilaahay subxaanahu wa tacaala karaamo inuu kuu huweeyo cafiska dartiis ilaahay subxaanahu wa tacaala kuugu ballan qaaday. haddii aan lagu sabrin oo loo dulqaadan oo wax la cafiyena karaamadaas iyo wanaaggaas iyo darajadaas sarraysa lama gaari karo. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu naga dhigo walcaafiina can innaas saabiriinta ah. ilaahay subxaana wa tacaala tawfiiqdiisa naan waafajiyo. kulanka dambe intaan kaga kulmi doono iyo qaanuun kale ilaahay subxaana wa tacaala nabadgelyadiisa ayaan idinkaga tegay. wasalaamu calaykum waraxmat ullah.